asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteeda waan idiin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan. waa walaashiina muna kusoo dhawaada channelkeena munas home. insha allah waxaan rajeynaya channelkeena inaad wax badan aad ka faa'iidaan. dhiirigelin badan ayaan soo geliyaa. caruurta ayaan aad iyo aad uga hadlaa. marka insha allah maamo walbo i daawanaysa ama qof walbo i daawanay waxaan rajeynaya insha allah channelka in aad ka faa'iidaan. haddii aad nagu cusub tahayna insha allah waxaan kaa codsanayaa inaadan naga hilmaamin subscribe, like iyo share iyo commenty. haddii hore aad u joogtan insha allah share iyo commenty iyo liketa waa xaggiina. mardhow ayaan soo kacnay, waa la qurquracday, jimco ayay inoo tahay. aniga caruurtii jimcadii fasax ayaan nahay, marka maasha allah nafta ayaan daryeelnaa, khaasatan tan caruurta ayaan xooga u saara. waxaan jeclahay marka isbuucii inaan gabadheeda timahan u dabo, maadaama subaxii orod iyo lagu baxayo, sidaas darteed waan u dabaa timaha. marka hadda axadii hore ayaan u dabay 6 isha camal ayay u dabneed. haddana waxaan sameynaya waan ka furfurayaa. markaan ka furfuro nafaqa ayaan rabaa inaan u mariyo, aan u shaleeyo subaxii oo dhan ilaa galabkii inay nafaqadaasi ay u marsanaato ayaan jeclahay, si ay yacni si fiican timaha ay u gasho. maadaama timihii isbuucii oo dhan uu yacni uu daban yahay, waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad nafaqo timaha caruurta aad u marisaan. nafaqada aad iyo aad ayay caruurta u caawinaysaa. timihii hadda marka waan dhameeyey, waxaan isticmaalayaa waatana nafaqadaani waana idinla wadaagay. 2 nafaqo ayaa jirto aan isticmaalo. midna waa tan aad arkaysaan caagadaani ku jirto oo aan soo gaday. waxaadna ka heli kartaan dukaamanka Soomaalida iyo waxaa laga helaa dukaamanka carabta ayaa lagu gadaa. haddii kaleetana guriga adiga ayaad ku samaysan kartid. marka labadaas waan isticmaalaa. mid guriga hadda kahor aan ku sameynayn waan soo geliyey. labadaas ka badan maba isticmaalo. markaad waa kana timaha waan kala bixinayaa. markii aan kala bixiyo nafaqada ayaan marinaya. nafaqada markaan mariyana waan shaleynaya, waan kuusayaa subaxii oo dhan ilaa galabkii. waxaan rabaa maasha allah timaha yacni si fiican in ay u gasho. anigana maasha allah waa marsanayaa, wiilka yar xitaa waan u marayaa iyo gabadhaba. aad iyo aad ayay nafaqada maasha allah muhiim ay u tahay. ha hilmaamina nafaqo gaar ay u sameysta caruurta. wax walba markaad daa'imaysid maaragtay culeys iyo caajis kaama saarna. marka mar walba waxaa muhiim ah inaad jadwal aad u samaysatid, waqti hebel yacni aad u qorshaysid in timaha iyo maxay ahayd nadaafada caruurta oo kale aad ka shaqaysid. aad iyo aad ayay muhiim u tahay. saad u joogteynaysid jirkaada iyo maskaxdaada ayaa la qabsanayso. jadwal iyo routine ayuuna ku yahay. marka waa kana jimco walba ayaa naga sameynaa, maadaama jimcadii ay nagu haboon tahay oo aan fasaxnahay. hadda nafaqadii ayaa mariyay. nafaqadii markaa mariyana waan shaleynayaa. haddana kuuska kalo sidoo kale ayaan sameynayaa 4 kuusbo. kadibna bacyar ayaan ugu daboolayaa. waxay ahayd way iska sii ciyaaraysaa. galabkii intaysan seexanin kahor 2 saac ka hor ayaa maqribadii agtiisa ayaa marka ka dhaqayaa. subaxii oo dhan waxaan jeclahay maasha allah nafaqada inay u marsan tahay. haddii aan arka xataa timeeda inuu qaleel zaa'id u yahay, waxaan sameeya waxaa waaye nafaqadan ayaa saliid olive oil oo kala ayaan ugu dhex qasaa si timaha maasha allah ay u noqoto jileec iyo qurux ayay ka qaadaysaa. haddana waa kana waa iska sii sheekeysanaynay, buwaagteena ayaan iska sii akhrisanaynay. cijiyaha ayaan ka jarayay. cijiyaha gabadheed aad iyo aad waxay u jeceshahay in rinji loo mariyo. marka rinjigana waan iskaaga marinayay. wiilkan meesha ayuu iskaaga sii ciyaarayay. aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay inaa ilmaha waqti la qaadatid, intaa sii sheekeysanaysaan, yacni waqti aa gelisid. haddana waa kana waan qadaynay. qadadan ayaan kasoo tuuray. maasha allah hilibkani lagama sheekeyn karo. 30 daqiiq ayuu ku koray. mashiinka aan isticmaalay, digsiga aan isticmaalay ayaa ii kariyay. maasha allah digsigaas waxyaabo badan ayuu maasha allah nolosheedii uu ka fududeeyay. intaan ilmaha lasii ciyaarayay oo cijiyaha u jarjarayay, rinjigaan gabadheedaan u marinayay. hilibkaasi dabka ayuu iisii saarnay. inaba caadi ma ahan. linkiigana insha allah hoos ayaan idiin soo dhigi doonaa si aad u aragtaan sida aan u sameeyey. qadadii kadib alaabihii ayaan iska soo dhaqay. jikadii ayaan iska hagaajiyey. beebiga yaray wuu naga seexday. aniga gabadha halkan ayaan soo fadhiisanay. dhulka ayaan firaashanay. waxaan u baahanay aniga wax yar oo cashir oo kale inaan iska sii boobsiyo, aan iska sii sameeyo. ayadana waxaan ku mashquulinayaa marba wax ayay qoraysaa, mar wax ayay rinjiyeynaysaa. marna maqas ayaan u dhiibay, xarfa ayay ii jarjaraysay. magaceedoo kale Amiiro in aan u qoro ayadana waxay ahayd way jarjaraysay. marka waa kana lambarada ayaa horteeda usoo dhigay si ay yacni u fiirsato ay u qorto. inta badan sabuurada ayay ku qortaa ay jeceshahay. marka tookada waxaan dhahay halkan ayaan fadhiisanaynaa. qalin ayaan u dhiibay. qalinkaasi ayay ku qorqoraysaa.
inta badan waxaan jeclahay inaan howsha aan iska boobsiiyo wiilka yaroo kale intuu iga jiifo si hadhow marka uu soo kaco aan u helo waqti aan yacni ayagana aan kula ciyaaro waqtina aan kula qaato. Maalmihii cashiri waxaasi aan u baahnayn inaan samaystane waan iska nastaa oo energy cusub ayaan yacni si yacni energy cusub aan u helo. Marka maanta oo kale cashiradii ayaan iska sii boobsiisanayaa ayadana waxaan ku mashquulinayaa xarfahan oo kale inay sii qorqorto lambaradaani. Marka waxaa yacni mar walba muhiim ah inaad jadwalkaada waqtigaada qiimo kuugu fadhiyo aad kala qorsheysatido maxay ahayd mustaqbalkii wixii aad jeceshahay yacni aad samaysan kartid. Marka sidaas darteed ilmaha hadii la haysto micnaheedii ma ahan in waxba la qabsan karin. Qof walba iyo waxaa waaye ii sheegaysaa jadwal aad u leedahay. Jadwalkan wuxuu mar walba u wanaagsan yahay waxaa waaye waqti ayaa helaysaa oo yacni nolosha aad ku kala qorsheysid oo wixii aad jecesho kale aad samaysatid. Cashiradan iyo markaan iska dhameynana xagga musqusha ayaan tagnaa madaxii ayaan kasoo dhaqayaa nafaqadii hadda kooley waaba galab intaan ka badan kuma sii haynayo guriga inaan iska sii hagaajiyo musqushii iska sii dhaqo ayaa rabaa insha Allah. Baby hadhow markuu soo kaco asigana aan u qaqabeeyo caawa ima qorsheysno yacni inaan jiko aan ku laabto oo casho ma karin doono insha Allah. Marka alaabahan ayaan iska sii dhameynayaa gabadh ayaan usoo dhaqayaa insha Allah. Waxaan ismaqli doonaa hadhow iyo habeenkii iyo wixii aan qabaneyno sidaad u aragtaan. Waa kan asxaabay halkan ayaan soo fadhiisanay family ayaa waqti wada qaadanayna halkan ayaan iska fadhinaa maasha Allah. Video walbana waan ku dhahaa haddana waan idin leeyahay waqti caruurta la qaata waxyaabaha xiisa geliyo oo farxad gelinayo kala isla daawada filin yar oo hadda aan u shido kartoon yar waan iska fadhinaa waan iska casheynaa waan ka sheekeysanaynay ari ayuu ahaay ayuu filin ku saabsanaa ariga muxuu sameynayaa intaasna waxaan ku dhahay maasha Allah. Caruurtii waad la sii hadlay waad la sheekeysanaysaa yacni kuma fasaxaysid filinka kaliya socdo. Marka maasha Allah asxaabay idinkan inaad dhiirigelin aad ka heshaan ayaan rajeynayaa maanta waqti waxaa waaye maalin waxaa waaye ii sheeg oo iska degan jawi degan maadaama maalmihii oo dhan orod iyo stress lagu jiray. Jimcadii maasha Allah anaga waxay noo tahay jawi degan ayaan iskaga jirnaa idinkan insha Allah in aad sidaas oo kale aad ku jirtiin ayaan rajeynayaa oo nafsada yacni waqti aad la qaadanaysaan caruurtana waqti aad la qaadanaysaan oo isfarxad gelinaysaan insha Allah asxaabay. Khayr ayaan idin dhaafay waa inoo video dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.